السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meelo badan oo ka mid ah adduunka oo ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ahi xilliga afurka waxay dadku safaf dhaadheer u galaan inay iibsadaan sharaab laga sameeyey geedka cirqusuuska. Haddaba maxay tahay sababtu? Khabiir u dhashay waddanka Jarmalka kuna takhasusay herbal medicine-ka ayaa sheegay in geedka cirqusuuska ay ku jiraan ku dhowaad 400 oo maado oo jidhka waxtar u leh. Inaad ku afurto ama aad habeenkii cabto biyaha laga sameeyey geedka cirqusuuskana waxa lagu sheegay inuu xifdiyo oo haynayo biyaha ku jira jidhka, sidaa darteedna aanad wax raada dareemahayn xilliga maalinimo. waxaanu ilaa xad xakameeyaa inaad caloosha ka dareento wax cillada. waxaanu dawo fiican u yahay dhammaan xanuunada caloosha. waxaanu nadiifiyaa beerka. waxaanu wanaajiyaa dhammaan noocyada kala duwan ee hormoonada jidhka isagoo kana dhiga kuwa si fiican u shaqaynaya. waxaanu jidhka ka xakameeyaa inflammationka. dhinaca kalena waxa iyaguna halkaa ah dad lagula taliyey inaanay isticmaalin geedkan. dadka lagula taliyey inaanay isticmaalinna waxaa ka mid ah dadka qaba xanuunka dhiigkarka iyo dadka qaata kiniinka macaanka iyo gabadha uurka leh iyo ta ilmaha nuujinaysa. ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama. aad baad u mahadsantihiin.